mar saxafiyiin Israa'iiliyiin ah ay ku booqdeen Uganda waraysiyo ay ka qaadeen waxa ay weydiiyeen sababta uu burburiyay cilaaqaadkii ka dhaxeeyay Uganda iyo Israa'iil isla markaana uu carabta dhinacooda ugu leexday waxaana uu kaga jawaabay I came so close to the Arab because Arab found that I am most influential leader in Africa in the continent. sababtaan carabta ugu leexday waxa weeye carabtu waxa ay ogaadeen inaan ahayn ninka kaliya ee runta sheega isla markaasina ugu saameynta iyo awoodda badan oo markaa muslimiinta khaliijku ma saameynayay ku lahaayeen inaad jarto cilaaqaadka Israa'iil oo aad carabta la xidhiidho sababtu waxa weeye dadka cilaaqaadka u jira Israa'iil muslimiin kaliya maaha waxa ku jira dalal masiixi ah laakiin runta ayay ogaadeen qof kasta oo hadalkayga dhagaysta xitaa shirarka midowga Afrika haddii aanan hadlin hogaamiyaashu waxay ugu yiraahdaan maxaa dhacay in OAU if I don't speak every leader try to ask why and I must ee aad u khudbadeen weyday shirkii Algeria ka dhacay maan hadlin balse markii shirku uu soo xidhmiyay ayaan helay 15 daqiiqo hadalkayguna wuxuu sababay in Fidel Castro hogaamiyihii Cuba uu xiriirka u jaro Israa'iil hadalkayga awgeed including Castro broke relationship with Israel after my speech saxafiyiinta reer Israa'iil waxay weydiiyeen soo Israa'iil kuma soo tababaran gaar ahaan markii aad baranaysay tababarka baarashuudka sida loogu boodo but I'm trained as a paratrooper in Israel waxaan baarashuudku boodka ku soo bartay Israa'iil laakiin waxaan leeyahay aqli wanaagsan General Dayan wuu ogaa inaan ahay sarkaal firfircoon but I have got a very good brain and even General Dayan knows that I am very good field officer ogow Moshe Dayanka uu sheegaya waa wasiirkii gaashaandhigga ee waddanka Israa'iil ma si fiican ayaad isu taqaaneen Moshe Dayan wasiirkii difaaca I know him he has been my friend he has been giving me dinner lunch in his house if I go to Israel ha si fiican ayaan isu naqaanay saaxiibka ayuu ahaa qado iyo cashaba gurigiisa ayaa uu igu samayn jiray markii aan Israa'iil tagaba wuu i soo dhaweyn jiray balse markii dambe runta ayaan isku nacnay but I must make it absolutely truth gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha Uganda waxay doonayeen inay muslimiin waddanka taasina waa sababtaan dalka uga eriyay Israa'iiliyiinta that is the reason why I chased away the Israelis iyada ma istaqaaneen ra'iisul wasaare Golda Meir ti Israa'iil ayay weydiiyeen saxafiyiinta Yuhuuddu yes ha waan isnaqaanay waliba si fiican ayay ii weelin jirtay markaan Israa'iil tago ayaa uu yiri Idi Amin Dada maxaad uga guurtay xiriirkii isbahaysiga Israa'iil I changed from Israeli alliance because Israeli are criminals sababta aan uga guuray isbahaysiga Israa'iil waxa weeye Israa'iiliyiintu waa dambiilayaal aan la aamini karin oo aan run sheegaynin waxay qaxooti ka dhigeen oo ay xoog iyo qori caaradii ku muquuniyeen Falastiiniyiinta oo ay dhulkii ka qaadeen iyagoo Mareykanka iyo Ingiriisku ay dabada ka riixayaan by force of arms given to them by Americans and the British waxa kaloo ay weydiiyeen ma run baa inaad tiri Hitler ma jirto wax Yuhuuda oo uu laayay why do you ask me about Hitler maxaad ii weydiinaysaa Hitler dhibaatada Hitler waa sheeko hore oo tagtay intaad dib inoogu celinayso wax hore oo dhacay mustaqbalka jiilasha soo socda iyo qorshayaasha aynu hore ugu soconno ma doonayno inaan dib ugu noqono sheeko hore the war of Hitler it was a different war than the war today if I am to prepare the war against Israel completely Idi Amin Dada waxa uu ku taami jiray in Falastiiniyiinta uu cudud ku taageeri doono isla markaasina uu Israa'iil uga dhicin doono dhulka ay ka haysato waxaana warbaahinta Umar u soo bandhigay inuu hayo qorshe uu ku weerarayo Israa'iil qorshahaasi oo uu ka mid yahay ciidan si gaar ah u tababaran oo weerar toos ah ku qaada diyaaradaha wada ka duqeeya dad ismiidaamiya iyo xitaa inuu dalalka dariska la Israa'iil ka dhaadhiciyo in afarta jiho lagaga yimaado Israa'iil taasoo ku tilmaamay inaanay wax badan qaadateen Israa'iil uu xaalad adag galin doono dagaalkana waxa uu sheegay inuu ka hagi lahaa gudaha waddankiisa get there by paratrooper and also bombing by airplanes and having few squadron of suicide
waxaa la weydiiyey ciidanka aad ku weeraraysa Israa'iil ma waxay noqonayaan kuwa reer Uganda waxaana uu yidhi And will there be Ugandans in those battalions? I don't know, but any volunteer, even France. ma garan karo laakiin xitaa mutadawiciinta dunida waa la soo dhaweynayaa hadday yihiin Faransiis, Jabaaniis iyo xitaa kuwa u dhashay Vietnam dhammaantood waa la soo dhaweynayaa. Vietnamese are there in these squadrons. Dr. Idi Amin Dada markii uu fagaarayaasha caalamka ka hadlayo waxa uu u doodi jiray carabta iyo dadka madow tusaale ahaan isagoo hadal ka jeedinaya kulanka qaramada midoobay waxa uu sheegay in carabta ay xaq u leeyihiin inay iska difaacaan Israa'iil. You are sure that in 1967 they captured the whole Sinai. maadaama Israa'iil ay weerar ku qabsatay dhulkooda 1967 dagaalkaasi oo ay ku qabsatay Sinai qaybo badan oo kamid ah Urdun iyo buuraha Golan Heights ee Suuriya. Most of the part of the Golan Heights, the resolution was passed here that peacefully Israel must obey that order to withdraw from all Arab territory. qaraar ayaad halkan ka soo saarteen iyadoo ay u dhan yihiin dalalka qaramada midoobay oo Israa'iil loogu baaqayo inay si nabdoon uga soo baxdo dhulka carabta ay ka qabsatay. They refused. way diiday Israa'iil. What can the Arab do now? carabtu maxay sameynayaan markaa waxaa intaas dheer mar kasta duqayn ayay ku haysaa iyadoo aanay carabtu rabin dagaal iyo burbur haddana waa lagama maarmaan inay isdifaacaan nabad ayaan ka rabnaa bariga dhexe balse ka soo qaad dhammaantiinba haddii uu qof kula dhaco ul adag xaq baad u leedahay inaad iska qabato carabtuna sidoo kale waa inay iska dhiciyaan oo ay dhulkooda la soo noqdaan dagaal iyo nabad kolbaka ay ku heli karaan sababtoo ah qori caaladii ayaa lagaga qaaday ayaa uu yidhi Idi Amin Dada oo carabta u doodaya. Therefore the Arab are to defend and also they are to gain their territory by all means. sidoo kale General Idi Amin waxa uu sheegay in dadka madowga ah uu u dagaalamayo meel kastoo ay joogaan gaar ahaan bulshada madowga ah ee ku dhaqan waddanka Mareykanka inay xaq u leeyihiin inay Mareykanka si xor ah ugu noolaadaan oo ay xitaa madaxweyne iyo wasiirba ka noqdaan waana u dagaalamaya ayaa uu yidhi Idi Amin Dada. Which I am still fighting for them. The black people in Africa, in America, must be the president of the United States of America, must be the secretary of state like Kissinger. mar kale oo uu la hadlayay duuliyaasha ciidanka cirka ee waddankaasi Uganda waxa uu ku dhiirigeliyay inay si fiican oo hufan u fuliyaan hawlgallada cirka ee diyaaradaha isagoo sheegay in waajibka ka saaran uu yahay inay gumaystaha ka kiciyaan qaaradda Afrika oo ay u diyaar garoobaan inay ka dagaalamaan wadamo kale oo qaaradda ka tirsan iyagoo ka mid ah xulafada Afrika ee gumaysla dirirka. As a pilot, you must know your own techniques within the aircraft. You must be ready to go and fight in any part of Africa which is still under imperialist domination. waxaa kaloo askarta ku dhiirigeliyay inaanay habboonayn in duuliyuhu ku xisaabtamo goormaad ku laabanaysaa saldhigga aad ka soo duushay balse muhiimaddu ay tahay inuu ku fakaro dagaalka haddii ilaahay xaggiisa ay ka ahaatana waad ku noqon doontaa saldhiggii ayaa uu yidhi General Idi Amin Dada oo dhiirigelinaya ciidanka cirka. And also as a pilot, when you are going to fight, you must not think that you are going back to the base, but you must fly to complete your mission. But if God bless you, you go back to the base. Field Marshal Idi Amin Dada intii xukunka uu hayay waxa uu cunto iyo dhaqaale waddankiisa uga ururiyay boqortooyada waddanka Ingiriiska oo xilligaasi ay soo wajahday dhaqaale xumo inkastoo tallaabadaasi caalamka barkii uu u arkayay ku digasho iyo jees uu Idi Amin ula jeedo waddanka Ingiriiska balse waxa xilligaasi uu sheegay inuu lacag iyo cunto badan u ururiyay si markaasi ugu gurmado jahawareer dhaqaale oo uu sheegay inuu soo wajahay Ingiriiska. British now actually they are in chaos, as you know. Their economic is in chaos completely. I am very far away from London, but I am helping them. We have opened the fund here, Save the British Fund. I donated 10,000 shillings from my own saving. Some people donated full lorry of vegetables, 3 tons. General Idi Amin intii xukunka uu hayay
waxa uu soo saaray digreetooyin madaxweyne oo mamnuucaya in haweenku ay xidhaan timaha macmalka. waxaa kaloo uu haweenka ka mamnuucay inay maryaha gaagaaban iyo marada ku dheggan jidhkooda ay xidhaan. sidoo kale Idi Amin Dada waxa uu bedelay magacyadii ajaanibka ahaa ee Ingiriiska ay u bixiyeen goobaha caamka amaba goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan sida wadooyinka caanka ah, waxaana uu ku bedelay magacyo ay garanayaan dadka reer Uganda. Idi Amin Dada intii uu talada waddankaasi hayay waxaa la tilmaamay in awoodda muslimiintu ay kobocday dhinaca dhaqaalaha iyo fidinta diinta iyo garaangalkooda awoodda dowladnimada. balse dhibaato xooggan ayaa ku dhacday markii Idi Amin xukunka